مني هندب شلمال قاطة مني هندب قلبض ولا جران كرا مني هندب لبهدلو مني هندب صندوق يملا وانت غاست اللوس وقاليو وحي روان كوكورا وادي ناي حسن شيخ محمود قبورة قفته ويادي سو قبر يا كلام حينو ويا قبر يا كلام محمد ربو نماس وقالو نماس وقالو نما يمالو انت على نوح جاو حسن وحو عني كرا واعني وحو لقي كرا واقي Soomaaliya waa cunay ha laga qabto dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay hoos isu fiiriyo dadkina dalkina Xasan Sheekh Maxamed ka qabsada inta yara hartay ka qabta wuxuu liqi kara liqiyay annaga soo harnay liibaan shuruq oo ka ganacsada qamrida iyo xashiishada oo qoryaha maxaan ku raacay caabuda kale oo rabo inuu Soomaaliya ku baabiyo gacanta yada ay ku jiraan nama soo galo nagamana baxo mana ma soo galo walaakii marna liibaan shuruq marna حقادننا أنت كلك وحسن الشيخ ده تقادنا يوم الريحان نصورك حمدها اللي قرب نصورك حمدها اللي قرب ما قالنا دتك الصومالي شو هجامين تريبانا ومدى الصومالية وحنا دتك لما تنك كلها قريء بلا شرعي وحسن الشيخ ده سوق اللي انتخب صدي حرياش اللي فردي أو يري الصومالي كل وين ما ينق أولياش وعنك وعيان بانو نهانو ما قالنا ما قالنا إنه حسن الشيخ لنا ما قال يكره حسن شيخ ومدحوينه دحي ومدحوينه Soomaaliyeed دحي madaxweynayaasha horu la mid yahay xilka ka dago caabud waxa taala 550 qori oo shaneefara oo asagu soo gaday oo mareexay yiri dadka Soomaaliyeed ku layn bay noqonayaan tariifka odayaasha loo dhiibay ma taala mana ku laynayno amni bay ku jiraan koonfur galbeed kooxaha waxaan sheegaynaa in ummadda mareexan ay tahay dadkii Soomaali soo hogaamin jiray mana laynayna ummadda Soomaaliyeed qalabka odayaasha mareexan baa gacanta ku haya Soomaaliya lagu laynin baa la qoriga tariifka hadii Xasan Sheekh Caawid soo weerarana waa lagu laynaya santuuqan madow dooni mayno ma doonayno hor baan u diidnay waxaan hor u diidnay qaadan mayno wixii isku dayana Jubbaland waxay kala kulmeen bay kala kulmi doonaan koonfur galbeed anigu ku halqabsan maayo meel la kufsado anigu raaci maayo ilaahay bay ma raacin waxa weeye sidii madaxweyne waxa ninka la yiraahdo Axmed Maxamed Islaan sidoo u gala casharkii la iloowaanka ahayo kala ku sameyn doona kalmudug meel la kufsado ma ahan kalmudug meel la kufsado ma ahan kalmudug waa galmudug wixii ka hor yimaadana tilaabay ka qaadi doontaa madaxweynaha waa waqtigiisu dhamaaday dala muqdisho uga baahan waqtina waxa weeye dambe uu luminayo ma jiraan mana qaadanayno mana qaadan doono haddaan nahay waqooyiga galgaduud oo ummadii Soomaaliyeed aan nahay matalaynana mana qaadan doono ma doonayno ma qaadanayno ma yeeli doono dadowna ha ku lumi dadka wado oo meelaha laga dhabacanayana waqtigu yeesan idin kalumin baan leeyahay soo raac dadkiina waxa weeye haddaa soo raac diidaanna gacan bir ah lagu qabanaya ama guriga lala kala ama meel la waxay astaan u yihiin daliil dawladnimo hogaamin Soomaalinimo bay astaan u ahaa lagu yaqaanay ayadii baan ku shaqaynaynaa wax ka sokeeyna la ka raadin maayo dadkan beeshan sida waqooyiga galgaduud degan hadda ka hor baa la keenay hawshan diiwaangelinta ayadoo la isku duuban yahay baa la diiday oo macaysteedkan galmudug wax ka wado haddeer oo dad dullaaliin oo soo dirsaday dullaaliin ma qaadanayno ما كشقينيسو ما doonayno waxaan rabnaa web system baa jira la maro degmada waxay hoos tagtaa state Xasan Sheekh wuxuu wada state-ka soo mariyo state-ka ku qanciyo istiqaal wakiilada leedahay cid walba ilaa tuulo ilaa degmo ilaa state qofkii halkaan inta tilaabada ka qaadaya xabar baan dhigayaa waa lafti jeer dhaafta waa jabtaa ma shaqaynayso وشرع دونك شرع هدوء سبب شريان عد إلى إليس ما شفته حسن هذا وقت جيس واضح وحسن واحد وباقي هيا ترى يردقو ترى الصومالي يردقو عقله هصون لقو هشغيله عقله عرفان قبل مو عرفان عقله عرفان قبل هكوش غيره ترى دي عرفتان لقى صوب بالعري وولا قاهد وولا تش قاهد وصومالي يكس عطي هصحني يقولك صومالي هنحدقو هديه وصلني حدقين wuxuu dhaxalayaa inuu ilmihiisa taariikh xul dhaxal doorashada uu wato xasan gurguurto oo xilkiisa dhacay
haddii aanu nahay galmudug waan ka soo horjeednaa doorasho aan wada dhammayn oo xamar laysku haysto oo aan xamar ka dhacayn oo aan lagu ogolaan oo aan galmudug laga ogolaan oo buntland aan laga ogolayn oo jubbaland laga ogolayn oo lagu weeraray maaragtay mucaaradkii oo dagaalkoodii haddeer weli socdo doonayno mana rabno tuuqii madoobaay oo aan shala diidnay baan diidannahay ma ogolin caabudu aaqna lama keeni karo sanduuqa madow horey baan u diidnay odayga waxaan u sheegaynaa xasan shiikh iyo waxa wada sanduuqa madow waxaan u sheegaynaa sanduuqaas madow odaygu asagoo maandheed haystaan diidnay asagoo aan wakhtigiisii dhammaan baan diidnay horey baan u diidnay deegaanka cawdaaq waa laga diiday doorasho aan soomaaliya oo dhan isku raacsanayn oo musharaxiin hadday tahay dhammaan aysan isku raacsanayn ma ogolin mana la keeni karo ma lagu arki karo sanduuqa madow meeshii laga arko ciidamadan gadaasheeda ka muuqda baa ka hawlgeli doona haddii alla idmo mana ogolin haddaan nahay reer cawdaaq odayga xasan shiikhna ha loo sheego odayga xasan shiikhna ha loo sheego shalay asagoo wakhtigiisii dhammaan oo maandheed haystaan ka diidna sanduuqa madow doorashada qof iyo codka uu la wareegayo waxba kama jiraan mana ogolin cawdaaqna lama keeni karo cawdaaq baydhabo maahan